iyo rugnigaas waajibka ah waa qofkii awooda oo maaragtay minista daaca ilaahi sabiilan ayaa leeyahay marka runtii qofka dadkaas qofkii awoodi kara inuu tago aad bay u wanaagsan tahay marka waxaan rabaa mawduuc kaana wax yar ka baxsan laakiin dhinac kalena loo dhigayo ayaa waxa inoo haya wariyaheena jooga wadanka Sacuudi Carabiya gaar ahaan magaalada Jidda Cabdulqaadir Qays oo alaab igala qayb qaata barnaamijka Cabdulqaadir Qays adiga leewa waad mahadsantahay xasan cadde dawadayaashina qiimaha iyo qadarinta naga mudan halkani waa TV-ga caalamiga Somali Cable studios magaalada Jidda ee wadanka boqortooyada Sacuudi Carabiya daawadayaal magaalada Jidda waxay ka mid tahay meelaha Soomaalida ugu faraha badan ee ku nool yihiin dalkan boqortooyada Sacuudi Carabiya si aan wax badan uga ogaano khadka telefoonka waxaa si toos ah ugu jira gudoomiyaha guddiga wacyigelinta jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Jidda Sheekh Cabdulqaadir Akhi isagoo ku sugan magaalada tan Sheekh Cabdulqaadir habeen wanaagsan ku soo dhawow TV-ga caalamiga Somali Cable وعدوهي بارك الله فيكم وجزاكم الله خير Sheekh Cabdulqaadir marka ugu horeysay waxaa noo soo koobtay waxqabadkiina iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad u qabataan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Sacuudiga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ورأيت إلى هذا المحدث سبحانه وتعالى هذا هذا البدن أن نسوكه بالكريمين بعدما الله سبحانه وتعالى ونادى المسلمين ومد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبعد سأشهد وديس وسأل هذه ونكسن وعلى جريمة الدعوة الجارية الصوماليات وبرنامج مهم هو انت متاهد بهان والودني يا سبحانه وتعالى أجري حسنات عن سيد طريقين ونغسيه قد بظنه كوافعي دعوني وهي جريمته عد الله لي عدي مسليه من آدم أبعهن إن دينت إسلام كان رح لقبره وإلهي سبحانه وتعالى جدك ستوصا وأبوياره وهي جريمتنا يدنا وحويه أفضل بكامل معه إلهي بكامله مركب إنسانكم مروى البوح وباحي هاي إن لا صحة وحي مركب وكبر سنية هينا لقبته وحي وكسح سنية هينا لغو تاجره ولذا لغو دعيه مركب الرامش كايساقا انتي عام باللوني مدبع بيرحي تضوان با إلهي سبحانه وتعالى كوافعي dad badan waxa weeye xaqiiqatan akhtaar badan iyo qisas badan oo jiri jiray way ka toobad keenan ilaahay bayna u soo noqdeen marka dhinac laga fiiriyo waa barnaamij diini ah weeyaan oo diinta islaamka ayuu waxa weeye xaqiiqatan wax badan ka qabanaya markii xagga laga fiiriyo bulshada iyo ijtimaaciga laga eegana iyadana dadku isku xidhaya oo dadka inay walaalo noqdaan ay saf waaxida noqdaan وحوذا قبصدان خلافات كمدوغان إلهي درتي وذا شقيان وحي حنا يسكنفتان وحي وناكسنا أي سكوى الميستان وحيابها صدق مباركي وغير هيا مركا حقيقة دد بدن وخياره يسووش لها وين يرد ويسووش لها أيا كسو ذا قيبقاتي مركا أركان إن برنامج وحبارسين رسالة وين ومدى المسلمين تدقصها تجارحان ومدى النفس الماليات مركا رنتي وحنا جينا إن شاء الله تعالى إنه نوضع برنامج مرد على أهمية intee la eg buu u leeyahay marka howlaha wacyigelinta jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Jidda أهمية هذه aad u weyn ayuu leeyahay sababtoo mar haddii uu yahay barnaamij diinta islaamka ee ilaahay ugu manaystay tareynaya in la barto ummaddu ay jahliga ka baxdo ummaddu ay noqoto ummad u sii jeeda xagga Allah subhanahu wa ta'ala ummad wanaagana isu sheegaysa xumaantana iska reebaysa barnaamijka u yeeray mar hadduu sidaa yahay waa dareemi karaysa ahmiyadda ummadda uu leeyahay waliba gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ayro badan baa dibadaha ka timaado oo aan dariiqa Yemen ku imaan jirtay ayro badan oo laga yaabo inaysan aqoon u lahayn wadankoodii iyo dhaqankoodii iyo shariicada islaamku waxay xambaarsan tahay duruus iyo muxaadaraad badan iyo kalimaad badan oo wacdi ah waxyaabo aad iyo aad u fara badan oo islaaxaadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda ugu qabtay
runtii maaragtay muxuu ahaye dadku ay ku sheegeen ahmiyad aada u weyn bayna ugu leedahay insha allahu tacaala. marka ma Jidda un kaliya ayaa ku kooban tihiin mise magaalooyinka kale ee Soomaalida kale ee joogta dalkan Sacuudiga waad booqataan oo howlaha wacyigelinta waa gaarsiisaan? taqriiban waxa weeye inta ku xeentaabsan magaalada Jidda la yidhaahdo Maka laga xukumo iyo manaadiqdan la xiriira magaalada Jidda la yidhaahdo sida Khulays magaalada la yidhaahdo iyo Saabo magaalada la yidhaahdo Bahra magaalooyinkan u dhadhow oo dhan nuurku wuu gaaray. wuxuu kaloo iyadana gaaray junuubka Jidda iyo madiinatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam iyo magaalada la yidhaahdo maaragtay Qasiim. riyaad laftigeeda tacaawun baan leenahay walaalaha jooga ee Soomaalida ah. marka waxaan ugu talagalnay in meel walba oo dadka Soomaaliyeed ay joogaan inay iskana warqabaan wanaagga iyo khayrka ay iska kaalmaystaan wax allaaliyo wixii xumaanahana ay ka hortagaan si sharaftooda iyo karaamadoodana ay maaragtay u ilaashadaan dad ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa mar walba u carara markii dhibaato dhacdana ay u noqdaan. marka waxaan dhihi karnaa Jidda waa maqarka ra'iisiga ah ama meesha barnaamijku aasaaska u ah weeye. laakiin gobollada waddanka oo dhan taqriiban u wada gaara khayrku cid allaaliya ciddii wanaag rabtana aad bay u soo dhaweysay xaqiiqatan. cidiisana ilaa hadda maba aan arkin. Cabdiqaadir iminka waxaa bilowday muusikii xajka islamarkaana maalmo kadib si toosa loo gudagalayaa. maxaad ugu talagasheen xujayada Soomaaliyeed ee sanadan kasoo xajinaysa meelaha kala duwan ee caalamka ka mid ah? walaalaha Soomaaliyeed ee xajka u yimid sanadkan ama sanad walbaba ee ka kala yimaada daafaha dunyada xaqiiqatan barnaamij loogu talagalay baa jirta oo kulleyba aan rajeynayna insha allahu tacaala inay si qurux badan ay u gaadho. waxaan la khitaabnaa oo toos oo la hadalnaa walaalaha Maka degan ee ducaadda ee barnaamijkana nagu taageersan wacyigelinta iyo dacwada isugu jira ah. xaqiiqatan markii waktigan oo kale uu soo dhawaado waan is aragnaa qaarkoodna teleefoonadaan ku wada xidhiidhnaa. waxaana aada iyo aada xooga u saaraa in dadka walaalaha xujayada ee dibadda ka yimi la dhex galo la daraaseeyo baahidooda cilmiyeed iyo midda diimeed iyo dhinac walba xagga bulshada xataa. marka muxaadaraad badan oo runtii maaragtay muxuu ahaye khayr ah ayay jeediyaan. xujayada waa la hadlaan way la khitaabaan iyadoon la xaqiraynin ducaadda la socotay iyo culimmada xaggaa ka soo raacday oo shaanigooda iyo qiimahooda aan la dhimaynin. iyo haddana waxa weeye ragkii fiican oo barnaamijkan wacyigelinta la socda oo xaqiiqatan aada u dadaalahaya ayaa waxay u sameeyeen barnaamijyo ku saabsan sidii xaajigu uu aqoon ugu lahaan lahaa sida uu xajinaayo iyo habkii nabiga calayhi salaatu wasalaam xajiisa uu gutay. marka tacaawun badan baa jiro oo baabka ku soo arooray. aad baad u mahadsan tahay. kaasi waxa waa Sheekh Cabdiqaadir Akhi, gudoomiyaha guddiga wacyigelinta jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Jidda. daawadayaal xubintana intaa ayaan ku joojinaynaa. waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo Cabdiqaadir Qayska. markan aan dib idinkugu celiyo waryaheena Xasan Cadde iyo stuudiyaha koowaad ee magaalada London halkaas oo nagaga sii ambaqaadi doona qeybaha kale ee ka haray barnaamijka. aad buu mahadsan yahay waryaheena Cabdulqaadir Qays. waxaan rajaynaynaa Cabdulqaadir Qays in uu wararka Sacuudiga ka sokow in uu wararka kale ee wadamada kale ama khaliijka ama bariga dhexe in uu warar badan inooga soo tabin doono insha allahu tacaala. daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo warbixino waxaa inoo soo socdaa